laba nin baa sheekaysatay oo odayaal ah oo Soomaali ah waayaha adduunka laga sheekaystay in baa wuxuu warniyo waliga masiibo ma kugu dhacdo markaasuu yiri haa waabay masiibo igu dhacdo suu yiri maxaa kugu dhacay niyo waxa igu dhacay buu yiri wiilkayga curado oo kaligiisii ahaa baa inta bahal qaniinay biga dhig marka masiibadaas waa igu dhacday kii kala wuxuu yiri aniga waligay masiibo iguma dhicine waabay cirib isaarta masiibo aniga iguma dhicin laakiin mar bay cirib isaarta suu yiri oo maxaa kugu dhacay suu wuxuu yiri laba reer baan lahaa dhowr iyo 20 ilmoodna waa lahaa 200 iyo 300 oo geela waa lahaa ari ku neef gaariyana waa lahaa laba xaasna way joogtay maalinkii dambaan ka safra habeenkii baan ka dhaxay salaadii subaxi waagu markuu bariyay aduu nus saac meelahaas baan reerku meeshu deganaa ku soo beegma roob baa habeenkii daay marka waxaan imid buu yiri reerkii oo dhan oo xalay inta wariq ku dhacday hal qof oo nool iyo hal neef oo xoolaay nool amsa ku jira dhowr iyo 20 ilmood labadii xaas geeli arigii awrtii xataa dhimateen marka wuxuu yiri waxaan isku dayay xoolihii iyo saas u jiifaan qoortay waxay ku hayaan macaash dhulka ku wada hayaan inaan midba barkiciyo wax nool inay ku jiraan saa ugu wareegay hal rati ah oo raroy ah oo geed ku xirnaa baa ii kacay buu yiri oo dhagii mid xalad dilaaceen qaraxii meesha ka dhacay baash xoolihii halkaas neef markuu aan rabo inuu ka noolsana meydkii tiriyeebiya dadkii baan fiirshay dadkii oo dhan waa meyd laakiin waxaan waayay labadii xaas mid kamid ah oo uur lahayd oo 9 bilood ahayd baan waayay raadna mala roob baaday meelaha marmaray meelmaha marmaray markii dhamaan u yimid iyadoo geed hoosti ku socsan waa fiirshay gabadhi way nooshay ma dhiman iyadoo way socsan tahay ratigii baan soo kaxaystay reeriyaan soo saartay gabadhii baan u keenay wuxuu yiri waa ku rara gabadhii baan u sameeyay meel aan oo darga camal ah baan saaray ratigii baan la dhaqaaqay وانا سقالكيدي بقى قبل الضاي ما نيكو دم بان ولا ابو يرتقي waa iska muqanaya maskaxdaydu xataa caadi uma joogto goor casar iyo duhur dhexdooda hoos 8 saac iyo bar meelahaas baan wabiga ku imid buu yiri wabi meel maraan ku imid ayr baan inta gabadhina fool ba qabatay kaligay baana saaka xataa markaan soo baxay kama fakarin buu yiri gabadhan amay kugu foolataayo wax sakiin iyo midna ma wato wuxuu yiri mar alla markii gabadhii fooshi qabatay rtigi baan ka dajiyay wiil bay dhashay laakiin nasiib darro waxaan xudunta kaga gooyay male geed baan inta fuulay bi xaleef ka soo goostay bi xaleefkan kaga jaray xudunta waa nolol laga yaabo inay aad u adag tahay laakiin ninka ka sheekeynay waa nin caadi u sheekeynay asagu waa ninka le balaaya ay saartay cirib ee aniga iguma dhicin waligeed balaaya wuxuu yiri markay gabadhii u mushay waxana afkana ma siin gabadhan waa wareersan tahay iyadoo dhanba nooc kale ay tahay waa gabadha xal wariqo ku dhacdo dadka hore dadka oo dhan ka dhinteen waxaan afka u gasho cunta ma hayo ratigi baan bireeyay ayr baratiga neefka geela waxa ku jira kuruskiisa cad la yiri cad iska bisil oo bisayla la dhaho cadkii baan uga jeexay kuruska afkaan u gashay markaas indhaha kala qaad gabadhi markay fiicnaatay xoogaa indhihi kala qaaday oo cadkii cuntay baan iribu ratigaan noo qalayahay ila meesha ma jiro umul baan ahay isbitaal baan 3 bilood ku jiray waxaas ma leh 3 bari ku jiray wixii ma leh baan iribu yiri oo nooga soo dhaamay ratiga intaan sii qalayo inta qaadatay jeegaan wabiga dah gabadhi mar alla markay istir wabiga aad u taabsiisi jeergaankii baalkii jeegi yaxaas baa ku dhuftay markaas aan waxaan arkay jeegi oo cirka u duulay waa soo orday la tagi marka wiilkii raabaan ku soo laabtay hilib male marka qalitaan oo u dhamaatay qofku oo hilibka u qaliyay gabadhay ahayd asagu nolol kuma jirin wuxuu ilmaha yar baan iska qaatay dharkii aan qabo dhanna waa u jeexjeexay ilmihii asagu ku duduubay saan u orday waxaan soo baxay qorraxdu sii dhacayso ari meel daaqaya wiilkii yara oo aan watay oo aan asna nafo ku jirin ila hooyadina ma nuugin noloshu waa nolol aan caadi ahayn baan ridii ugu horeysay oo irmaan afka u gashay mar alla markaan saa afka ugu gashay wuu qaawaya asagu ilmaha yarka wuxuu haystay maradu ku duuduubay ilmuhu ku duuduuba baan waxaan ku war helay bahal ulaho igu dhigtay kor baan u fiirshay mise gabar inaan ay uleynayso waxay tir balaayada reer ariga dhex degtay maxaa saas markaan u istaagay oo ay yartay inaan qaawanahay bayse siidays way carab 5 daqiiqo kadib waa kuwan odayaal dhan oo ornimo dhan oo xoog loo wada ordayo seefo iyo waramo iyo wato gabadha u qayl geyso tir balaaya ariga ku dhaxar qofkii ugu horeeyo aan arkay sadogay buu ahaa wiil oo gabadhii maanta la iga cunay dhalay arintii baan uga sheekay waa la kaxeeyay horta odayga baa maray saaray biilo ninkuu qaaway go'ay buu saaray bas waa la kaxeeyay wuxuu yiri guriga baa la geeyay oo gabadhay la dhalatay bay uleysay wada odaygu markuu cuntay siyaasado ila hadlay muu tagay
يوشيخ ينما سوى كحيو قبل ولا يقوم يهريو همين كيبا أقل باليجين حد يربويري من كان مركو شاكين أيوه دور يلا بعطن الموت يحول ملايين عليا مركو ولا جاي دبعته يقوم لكن ما أنا قاعد أعرف ساعتين